السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود مكسو دنيا كجوكتا ونقد داوانيسان كسو دوادا برنامج كي تحناها يكون كشبلي سومالي تشانل وتضواض بين كي ماجري استوديو تي في سومالي تشانل وكل مقالة نيروبي وحلقة دي طبنات برنامج كاب شيخ قفك وجوه الرئي يا وحى وليه waxaan salaamayaa sheekha iyo bahda Soomaali Channel waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo hadii waalidkii ugu qasbaan inaan gabar u dacwoodo oo waa xaaskayga oo been aan ugu dacwoodo inaan ka diido maxay diinta ka qabtaa waalidkii بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد والدك وحمدن يهي إن لا أطيعه لا احترامه ولا قدريه لكن طاعة إيو لكن نقولانت يا باري نمذا والدك باري لو يهي كما تشرتوحي الدنب إيا معصية arintan labadaba dambi iyo macsiyo ay u tahay marka koobaad ee beentan la sheegayo gabadhaadan qabin waan qabaa inaad tiraahdo beentan aad ku dacwooto diiwaan iyo xuquuqna ay ka dhalato waa dambi iyo macsiyo way midda labaadi qof aadan hadhow mas'uuliyadiisa qaadi karin qurbe iyo gaalo inaad geysana iyadana wixii dhib ee ka yimaada dambiga qayb baad ku yeelan waxaad u dambiya macsiyo noqdo cidna laguma ateeco nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa ka sugan marar badan inuu arrimahaas oo kale ka digay in la isku ateeco mar wuxuu waxa kamid ah xadiisiisa inama taa'atu fil ma'ruf taa'adi iyo kala amar qaadashadu waa wixii san ee wanaagsan marna waxa ka sugan inuu yiri fa innahu la taa'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah qof aadamaha dambi ilaahay laga galiyo macsiyo iyo xaaraan lagu maateeco sadarteed waalidku ixtiraam iyo qadarin iyo taacu leeyahay tan oo kale laakiin maaha sadarteed ma ii bannaan tahay maaha su-aashiye waa ka xaaraan waalidka hadalkiisa inaad yeesho waana kugu waajib inaad diido isaguna inuu taasoo kale kaa codsado codsiga laftiisu ku dambaabaya oo waxa waajibka waalidka laftoodu inay taasoo kale dembiga ka toobad keenaan ay macsiyada iyo xumaanta iyo beenta amrayaan بالله التوفيق قف كلا يوحى ولي شيخ السلام عليكم شيخ شبيلي وانكو سلامي هذه فيصل عسيري بهذا الصومالي channel magacaygu waa hooyo Soomaaliyeed waxaan joogaa Nairobi walaal waxaan rabaa in sheekha ii weydiiso odagaygu wuxuu jira Ameerika 19 sano mana soo socdo namana ka xaynayo anigii ciyaalka markasta balan ayuu naga qaadaa wuxuuna yiraahdaa waan qaadaya aniga maqnaashihiisa kama xumi laakiinse waxa ay dhibtay ballantaani badan oo intuu dhowr mar uu qaado hadana iiga baxayo marka diinta maxay ka qabtaa ballantaas uu dhowrka jeer iiga baxayo alxamdulillah haddii aan mushkilad bii lahayn mushkilad tabitaan reernimo iyo maqnaanshihiisana sida ay saaqabada hooyadani sheegtay ina waxba dhib u arkin masaladan ballanta uu qaaday oo sidaan u fahmay ay tahay iyadii ilmaha inuu carab Mareykan geeyo inuu qaadana ma banaanayn in la fuliyana ma banaana sadarta shariicadu isaguna waa khaldan yahay iyaduna way khaldantahay isagu waa qaldan yahay oo ballanta beenta uu qaadayo de ballan beena iyo wax dambi ah ballantii lama qaado in ballan dambi ah la qaadana macsiyo iyo sharciga mukhalafadiisa way haddii la sameeyo ballanta iyo nadarka wax dambi ana nabigana waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam la nadra fi ma'siyati nadru ma'siya ma baa kuntamaba kafaratu yamin baa laga rabi lahaa tu hatta nadar galo laakiin fulintu ma banaanaateen dad ku dhaarato ama ku nadarto ama ballan qaado wax dambi ah waxa ku faran tawba iyo dhaarta iyo nadarka oo kafaara leh laakiin fulinta wixii aad ku dhaaratay waxaad ballan ku qaaday waxaad ku nadartay ma banaana ilmo yaryara in arlada gaalada la geeyo hadhow awood iyo maamul la lahayn inihii la geeyena inta badan ay lumeen hooyadana uma banaana inay ballanta tiigsato ay dalbato ay tiraado waa in la ii fuliyaayo ay dhib u kiciso isna xataa hadduu ballan qaaday oo uu daacad ka ahaa inuu fuliyo ma banaana ceelna nin galaa Faysal oo la waraystaaye ilmaha carrada qurbaha iyo galbeedka iyo westernka loo sii qaadayo أنا نورث أمريكا ما تجين لكن يوروب يا باريغا فوق أستراليا نيوزيلاند ما نقتري ilmaha Soomaaliyeed ee meesha lagu hayo iyo ilmaha muslimka wadamada la geeyana waan arkay
ilmo yar geyntoodu ma bannaana waa tahluko diimeed iyo meel qarkaxoora waaye ilmo carruur badan oo Soomaaliyeed oo diintii ka baxay baan arkay anugu oo wadamada dabeecadda da'dooda ka jirta waxa ma rumaysnin ilaahna ma rumaysnin nabina ma rumaysnin diinna ma rumaysniya waalidkuna waxba kama qaban karo iyagoo sidaas ay qasab guriga ku joogayaan ama ay gaalo la wareegaysaa meeshaas ilmaha in la geeyaay waalidka ilmihiisa iyo diinta mustaqbalkiisa ku bakhaylayaay inuu ballan qaadana maaha inuu riixana maaha saa darteed hooyadu waxay ku khaldan tahay meesha ilmaha tahalukada diineed lagu tuurayo ballantii waa in naloo fuliyaa inay ku doodaay sharci ahaan ma bannaana wixii kalaa laga hadli karaayaa bil nama siiyo maqnaanshihiisaan tabaynaayo anuu dee reer iyo dhaqan baan u baahnoo reerka yaga waxaan cuniyo meelan sixda kama waayin gabadhu xaq bay u yeelan lahayd laakiin intaaba haddayna dhib ka qabin tan ballanqaadkuna waa dembi raadinta fulinteeda iyo tiigsigeeduna dembi weeye marka labadoodaba ha toobad keena wabilaahi towfiiq qof kale ayaa wuxuu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waxaan joogaa waddankan Kenya waxaa dharka noo dhaqda haween Kiyaan ah marka dharkaasi oo gaala ah marka dharkaasi ma ku tukan karnaa mise kuma tukan karna sheekho alxamdulilah haddaydan wax nijaasaa gacmaheeda ka ogeyn waad ku tukan kartaan dadka gaalada ee aadamihiina in najaaso lagu arka maahane sidooda kale waa u daahir gaaladu waa laba kuwa ahlu kitaabka ee guurkoodu bannaan yahay iyo kuwa aanu bannaanayn kuwa guurkoodu bannaan yahay dee sharcigaaba banneeyey ninkii isagoo muslima gabadh ahlu kitaaba inuu guursado iyadaa gurigii joogta iyadaa gohoshiya iyadaa cuntadii karinaysa iyadaa dharkii dhaqaysa iyadaa gurigii nadiifinaysa jirkeedii waa nijaasay iska ilaali maaha nabigana calaih salaam reer yahuudeed oo madiine la deganaa intay cuntaday kariyeen guryahooda ku marti qaadaan buu cuni jiray nabigu sala allahu alayh ali wasalam mararka qaarkoodna waa kii loo subeeyey saxaabada qaarna ku dhinteen isna suntii aakhirka asbaabta geeridiisa ay ka mid noqotay huwa biabi wa ummi sala allahu alayh ali wasalam hadday yihiin dadka aan diinba haysaninoo wathaniyiinta iyo majuusta iyo mushrikiinta iyo mararka qaarkood la yidhaahdana iyagana dhibaato ma lahano xadiidkii saxiixa ku yiilay cimraan ibn xuseen radi allahu canhu wa ardaahu waa kii uu lahaa xilli ay oomana ahayd isagiiyo nabigiyana safar ahaayeen intay baxeen oomana iyo balaayo ay dhacday aad loo rafaaday bay soo qabteen islaan mushrikadoo ceel intay ka soo dhaansatay reerkeedii u socota way weydiiyeen biyuhu intay jiraanoo ma dhowey ku tiri iyadii bay soo afduubeen waxaana filayaa cali baa la socday radi allahu canhu wa ardaahu inkastoonan hubin way keeneen nabigay u keeneen waa la fariisiiyey nabigu wuu duceeyey dadkii wuxuu yidhi ka weysaysta waa weelkeedii iyo qarbadkeedii iyadoo ay soo dhaansatay biyahana ku soo shubatay afkana ka soo xidhatay waa la cabbay waa lagu tahaaro qaatay weelal baa lagaga shubtay biyaheediina waxba isma dhimin raashin baa loo ururiyey raashinkii baa la siiyey waad mahadsantahay iska socaa la yidhi dadkeedii markay u tagtay waa kay dhihi jirtay maanta waxaan arkay bay tiri nin laba mid ah ninka nabinimada sheeganayay ama waa nabi ilaahay ama waa uunka ilaahay abuuray kii ugu saaxirsanaa wayay tiri intaasoo biyoo la isticmaaloon arkayay weelkaygana isma dhibin waagii dambana reerkoodii iyadoo fariintay soo tabisay darteed iyo biyaheedii la cabbay abaal loo hayay baa looga warwareegi jiray reerkoodana sababtii bay ku islaameen waxay tiri wareer wax idinka warwareegaya tiin baan u malayne niyo islaamka qaata haddaba waatay culummadu ku soo koobaan lafdiga kuma soo aroorin laakiin tawada'a min masaadati imra'atin mushrika naag mushrikadoo diinba ilaahayba rumaysnayn oon diinba kitaab lahayn biyaheedii buu ka weysaysan saa darteed gacmahoodu waa daahir jirkooduna waa daahir wixii ay kariyaan iyo wixii ay dhaqaanna nijaaso ma aha wixii qalitaana waa baab gaarkiisa ee la kala qaadayo saas darteed waa ku tukan kartaan waa ku seexan kartaan weelasha waxaad ku cuni kartaan wax way idiin karin karaan wabillahi towfiiq qof kale ayaa sheekhu wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacayga waa Kamaal waan idin salaamay adiga sheekha su'aasha aan rabo sheekha inaan weydiiyo waxa ay tahay marar badan ayaa waxaan ku dhaartay Kirishtan ayaan ahay haddaan waxa sameeyo marka sheekhu wixii waan sameeyay marka dhaarta diintu maxay ka qabtaa dhaartaas dhowr mar aan ku dhaartay waxaas daan sameeyay Kirishtan ayaa haddana wixii ma sameeyaa alxamdulilah nabigana waxaa ka sugan sallallahu alayhi wa sallam fi saxiixi inuu yidhi man xalafa bimillatin gayri alislaami kaadiban fahuwa kamaa qaal ninka xataa isagoo ay been ka tahay ku dhaartay diin aan muslimka ahayn sida uu yiri buu yahay kristan maanay hadduu yahay kristan waa
waa sida uu yiri buu yahay ibn Mas'ud fahuwa kama qaal waa sida uu yiri riwaayadka qaarkoodna tal ku bixiyeeyo marka kadib waxa la sameeynaya wuxuu yiri fal yaqul la ilaha illa Allah shahaadada ha qabsado ninkan intii baan leenahay hada diin kala ku dhaaratay nabigu wuxuu yiri qofkii diin kala ku dhaarta waa sida uu yiri sida uu sheegtay buu yahay maxaa xiga oo sameeya nabiga sheego yiri fal yaqul la ilaha illa Allah shahaadada ha qabsado billahi tawfiiq daawada waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijka kulanka Shibili ee Somali Channel waa barnaamij toddobaad walba in kaga imaada stuudiyaha labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijka qof alaali qofkii doonaya inuu ka qayb qaato wuxuu nagu sagaajin karaa su'aalihiisa ciwaanadeena kala kulanka Shibili Somali Channel.tv ama page-kan ku leenahay Facebook oo kulanka Shibili Somali Channel qof kale sheekh wuxuu leeyahay walaal waxaad sheekha ii weydiisaa markaan rabo janaabada inaan ka meerto qaabkee ugu haboon oo loo weysa qaadanaya markaan janaabada ka meeran rabo qaabkee ugu haboono markaan janaabada ka meerto ka qubaysto qaabkee ugu haboon oo aan weysa qaadanaya alxamdulillah weysada iyo janaabadu waa laba xadath oo la kala yiraahdo xadath asghar iyo akbar mid ka yar iyo mid ka weyn bimacnaa weysadana xubnaha qayb ka mid ah la dhaqaa qabayskana xubnaha jirka oo dhan baa la dhaqaa badii waa mid jirka oo dhan aad dhaqayso iyo mid aad jirkii qayb ka mid ah dhaqayso laba qaab labadaba saddexdaba waad weysa qaadan kartaa in intaadan weysa qabaysanin aad weysa qaadato ama jirka oo dhan weysa qaado ama lugaha hambee labada ariiqaba nabiga way ka sugan tahay sallallahu alayhi wa sallam kadibna aad qabaysato sida aad ku weysa qabto qabayska aad weysa qabayseen la eegayana waa qaybaha ugu dambeeya qaabka labaadi waa inaadan weysaysanba laakiin janaabadii inaad ka qabaysato janaabo iyo qabays waajib inaad qabaysanaysa aad niyoto weysaduna way raacaysaa oo waxa tadaakhul cibaadaad la yiraahdo weeyo way soos galayaan mar haddaad kii weynaa samaysay xubnaha dhaqi lahayd iyo ka badan ba dhaqday inaad ku noqoto waxba looma baahna nabigana lagama warin sallallahu alayhi wasallam intuu janaabo ka qabaysto haddana dib inuu ka weysaystay ma jirto haddii uu shaki kugu yimaado ama weysadii wax jabiyey samaysa ee kugu yimaado ama inaad istaabatay ay wax dhacdo marka qabayska dhamaysata dib inaad ka weysaysato labada horaana ka fiican inaad iska weysaysato kadibna qabaysato waa ariiqada ugu fiican haddii aad qabays waajibood niyootay iska qabaysatana ama janaabo ha noqoto ama xayd ha noqoto ama dhiig umul laga qabaystay ha noqotee iyadana ta kalena weysaduna way raacaysaa oo xubnihii ka badanba waa dhaqday kolba intaan ogahay garanaya anugu ama arkay hadiga nabigeena sallallahu alayhi wa sallam isagoo intuu qabaystay qabays waajiba haddana dib weyse cusub ka weysaystay ma arag wabillahi tawfiiq sheekh qof kale ayaa waxa uu leeyahay waxaan rabaa in sheekha la ii weydiiyo su'aal oo ah markaan la baashaalaya xaaskayga waxa iga yimaado biyo aan mina ahayn haddii ay shahwadu kacdo bacdeed waana u tago xaaskayga biyihii hore najaas miya oo meesha ay iga gaarto ma iska dhaqaya alxamdulilah biyaha yimaada carabiga madyi baa lagu yidhahdaa miim daal iyo yaa madyi soomaalidana waxaa ka mid a magacyadeeda lixdaleelo ama yixdaleelo labada waa lagu dhawaaqaa labada dhawaaqo soomaalida mujtamacna waan ka maqlay biyaha sidaasee shahwada ka hor yimaada waa biyo jiidma oo yar dhareer ahaana waana biyo aan aada u caddayn oo dhuuxaya lafta iyo yar madow kaga jira aada moodeyso biyahaasi madyiga la yihahda najaaso wey nabigeena calayh salaatu wasalaam baa la weydiiyey cali bn abi aalib bay aada ugu badnayd radia allahu canhu wa ardaa gabadha nabigana waa qabo waa ka xishooday marka rag buu u diray ay ka mid ahaayeen miqdaad bin aswad iyo rag kale nabiga markay soo weydiiyeen wuxuu yidhi waxay meeshay kaa gaadha iska dhaq kana weysayso manacsida kaadida oo kaleeta waya xukunkeedu najaasada iyo weyse jebinta labadaba biyaha sidaas iyo hadday ku gaadhaan dee waad iska dhaqi waxaa kaloo nabigeena la weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam saxaabada nin ka mid oo ka sugan rasuulka ilaahayow ma ku tukan karaa maradii xaaskayga aan ugu tegeen ugu galmooday ma ku tukan karaa nabigu wuxuu uhi nacam in lam tara shay-an ilaa an taraa shay-an fataqsila inaad wax ku aragto qoyaan oo gaadhood markaa ka dhaqaysa maahane haddaba haddaan waxba gaadhin laga dhaqi maayo waad ku tukan kartaa haddii wax kaa gaadhase waad iska dhaqi xadiidka cuثmaan radi allahu canhu ardaahu isagana waxaan leeyahay zayd ibn khaalid aljuhani marka nabiga la weydiiyey alayh salaam
qofka waxa ka soo gaadhay xiriirka gogosha iyo reerkiisa markay dhex maraan wuxuu yidhi wixii ku soo gaadhay ee qoyaana waad iska dhaqi saa darteed waad iska dhaqi wixii qoyaan ee jirkaaga ama maryahaaga gaadho bilahi towfiiq qof kale ayaa waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacayga waa Sakriya Cali Faarax waxaan joogaa Muqdisho hadda ka hor ayaan xanuunsaday waxaan xaaskeyga ku idhi aan ku furo oo waan xanuunsanahay markaas waxay tiri ma yahay furin waa ku samreeya marka sheekhow ma aan furin gabadhii waan isqabnay ilaahina caafimaad ay sii waan caafimaaday marka aan ku furo gabar xaaskeyga ma iga furanta waliba aniga xanuunsan waan caadi ahayn alxamdulilah marka koobaad dee ilaahay ku caafiyey mahadnaq iyo shukri buu kaa mudan yahay inta naga jirana allah caafiyo marka labaad dee xaaskaagu libin iyo abaal bay kugu leedahay adoo xanuunsan hadday kuu sabirtay adna wax badan aad ugu sabirtaa lagaaga baahan yahay labadaa marka laga soo tago sidan furiin maaha waxaa kala duwan oo rabaa inay fahmaan dadka dhegaystayaasha iyo daawadayaashii furiin iyo ballanqaad furiin طلاق iyo wacdu biطalaaq mas'aladan waa soo jeedin furiin furiin maaha soo jeedintaa kadib bay fulin iyo inaan la fulinin lahayd saas darteed gabadhu sidan kuma furanto aan ku furo iyo waan ku furi doonaan waa ballan inaan ku furo aan ku heshiinay waxaasoo dhan furitaan maaha haye heshiiska marka la gaarada in la fuliyo buu furitaan ku noqdaa tan waa wacdi ama waa طalab iyo soo jeedin labadaa midna furitaan maaha ilaa uu yidhahdaa waan ku furay oo arrintii uu ku tallaabsado markaasaa furiin iman lahaa laakiin intan furitaan maaha waxbana kagama furna sidan wabilahi towfiiq qof kale ayaa waxa uu leeyahay waxaan sheekha weydiinayaa inay bannaan tahay in xaaskayga aan afka iska nuugno mas'aladaasi oo muran badan ka taagan tahay waad mahadsantihiin alxamdulilah faysal afka carabka miya carabka iyo bishimihii miya kolba baashiyo ka wadaa umalayna sheekh ma qeexin alxamdulilah masalada asal ahaan way bannaantahay nusuustana waxbaa kaga soo arooray nabigeena sala allahu alayh alih wasalam markii jaabir ibnu cabdilaahi oo gabadh garoob ahayd guursaday u yimid isna nin yaroo dhallinyaro ahaa dagaalkii uxud baa waxaa ku dhintay jaabir abihi cabdillahi bni camr ibni xaraam radia allahu canhuma saxaabada qaale ee ka mid ahaa jaabiroo hal wiila iyo gabdho kooxuu ka tegey reerkii baa ku soo fakaday wiil yarna wuu ahaa jaabir maalinkii dambuu gabadh weyn oo garoob ahayd oo gabdhahan de ahaan ka weyn buu guursaday say booskii hooyana mayna lahayn gabdhuhu say booskii hooye uu gasho oo qof ururiyo oo iyaga ka weyn oo wadi kara u noqoto nabigu u yimid oo wuu u sheegay nabigu wuxuu yidhi athayiban bikran am thayiban ma gabar baa mise waa garoob markaasuu yidhi garoob nabigu wuxuu yidhi maxaad gabadh u guursan weyday wuxuu yidhi gabdhihii baa yaryaraayo mid iyaga lamida haddaanu keeno inay kala socon waayaan baan ka yaabay marka mid qof ka yar weynoo waaya araga oo iyaga wadi kartaan doonay taa waa qisada guud ahaan nabigu haddaba jaabir markuu weydiinayay waxaa ka mid ah hadalladu yidhi fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuk ereyga aada la qosasho kula qosasho marka laga soo gotaa tulaacibuhaa wa tulaacibuka dabdiga sida loo xarakaynayay bay ruwaaddu isku qabteen xataa fii saxiixi albukhaari xaafid ibnu xajar haddana daakirada xasuustaydu ayna si kala noqon wuxuu sheegi jiray laba meelood oo kala duwan ruwaadda imaamu albukhaari qaar ka mida nin mustamli la yidhaahdo iyo nin kushmayhani la yidhahdo labadooda riwaayo in nabigu riwaayaadka ay wariyeen waxaa ka mid ahaa maxaa kuu diiday gabarh yar wa licaabihaa mise wa lucaabihaa licaabihaa ciyaarteeda waa riwaayad wa lucaabihaa dhareerkeeda iyo caliyadeedood muudsatana waa riwaayo riwaayada kushmayhani mustamli inay ahayd baan u malaynayaa mar kale wuxuu dhihi jiraan u malaynayaa adunnu inuu talkhiis alxabiirka ahaa wa habata fii riwaayatin lilbukhaariy waxaa ku sugan riwaayaadka bukhaari qayb ka mida ereyga waa lucaabihaa marka inaad dhareerkeeda iyo caliyadeeda muudsato riwaayo imaamu طabaraani uu warinayo oo sanadkeeda maqaal ku jira dacfi min xadiidi kacb ibni cujrat oo qisada jaabirah iyadana waxay ahayd fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tacuduhaa wa tacuduka aada qaniinayso iyadana ku qaniinta waxaa kale imaamu axmed uu wariyey fii musnadihi min xadiidi caaisha
culimmada qaarna ay taxsiiniyeen qaarna tadciifiyeen inay tiri nabigu kaana yuqabilu caaishata wahuwa saa'imun wayamusu lisaanaha carabkeedana waa muudsan jiray jumlada wayamusu lisaanaha waxaa loo badan yahay inaan asixin laakiin fuqaha badan ba waxaan rabaa inaan ihahda u daliishaday iyo riwaayada bukhaari waa lucaabiha caliyadeeda ah bay u daliishadeen masaladan lafteeda culimmada anigu wax diiday ma arag laakiin kutubta fuqahadeena mucaashara zawjiya maxaa barnaamijka ka hadlayaan in afka la iska dhunkada iyo in bishimaha la iska muudsada iyo in carabka la iska muudsada iyo dhammaan inay bannaan tahay iyo asalka ibaaxada iyo istimtaaci bannaana bay ka mid tahay billahi towfiiq qof kale wuxuu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo qof ayaad hawada iska mehersateen oo ayna is arkin oo aad iska aragteen teknolojiyadda skype-ga fontageka iyo wixii la mid ah waxayna kala qarsoonna ma jiraan sidaas daraaddeed haddii aad furto ma waxa ay leedahay meher buuxa mase waxa ay leedahay kalabar meherkeeda loo magacaabay alxamdulilah meherka nuskii bay leedahay masaladani meherka nuskii lagu yeesho waa xiriir gogoleed iyo galmo inay dhacdo in la isdaadaawada maaha hadda waxaad ka hadlaysa waa ina isdaadaawateeno kaamerooyin aad iska daawateen ama skype ka dhig ama fontage ka dhig ama stream live-ka ka dhig ama baaltoogyada iyo qolalkan camera video cameraska ka dhig waxaa dooni ka dhig ama teleefoonadan la iska arka ka dhig un labadan qof camera iska arkeen labada qof haddii ay xidhiir gogoleed iyo galmo timaadana meherkii oo dhammaystiran bay gabadhu yeelan haddii aynan lahaynna oo galmo iyo xidhiir gogoleed dhicinna gabadhu meherka nuskay bay leedahay naska qur-aanku sidaa wey waxa kala saarayaay haddii haweenkii furtaan ilaahay waa ka yidhi idinkoontaa min qabli an tamasuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum nus bay leedahay haddaad xiriir gogoleed la yeelataan ay galmo iyo gogol timaadana fuul bay yeelan adigu ama daadaawo ama hadaadaawanin daawasho waxba kuma xirna billahi towfiiq daawada waxaan dhexda uga jirnaa barnaamijka kulanka Shibili ee Somali Channel waa barnaamij toddobaadle ah oo toddobaad walba in kaga imaada stuudiyaha labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi qof alaaliyo qofkii raba in sheekha su'aaluhu soo weydiiyo oo uga jawaabo wuxuu nagu soo hagaajin karaa ciwaanadeena oo kala ah kulanka Shibili at Somali Channel.tv ama page-ka aan ku leenahay Facebook oo ah kulanka Shibili Somali Channel sheekh qof kale wuxuu leeyahay marka hore waxaan salaamayaa sheekha محمود شبلي markii xigtana daadiyaha barnaamijka Faysal walaal waxa rabaa inaan sheekha weydiiyo ninka hadii uu naagtiisa isagoo xanaaqsan caayo uu ku yiraahdo dhila yahay xukunkeedu muxuu yahay alxamdulilah horta labada isqabaay gaar ahaan inay iscaayaan ma banaana isagu inuu dhila yiraahdo isagu dhila inay tiraahdo in khaniis la isku yiraahdo in wacal la isku yiraahdo in tuug la isku yiraahdo in la iscaayo eraygu dooniba han noqdee ma banaana muslimka guud ee inta meel isugu yimaadaan nin walba dantiisa raacanayaaba la diiday inay iscaayaan oo nabigu alayhi salaatu wasalaam laysa almu'minu billahaani wala ta'aani wala alfaaxish albadi labada guri ku wada nool inay iscaayaan waliba ay foolxun iscaayaan ma banaana arintaasi qoyska Soomaaliyeed ha ka waansamaan ha ka waantoomaan caytanka iyo aflagaadada iyo sida reer laguma dhaqo xanaaquna inuu xuduud yeesho ku fiican yahay taas waa masalada koobaad masalada labaad ninkani hadalka aad tiri waa qadaf dalaaq maaha laakiin waa qadaf waa gabadhii waxaad ku sheegtay inay zinaysatay zaaniyata qofka hadduu qof ku yidhahda zaaniyadna hadday xaas tahay laba khiyaar baa furan iyaday horta ka go'daa inay ku dacweysato sharciga kugu dacweyso iyo in kale hadday sharciga kugu dacweyso laba khiyaar baa kuu furan suuratu nuur awaa'ilkeeda kuwii lagu sheegay baad noqon والذين يرمون أزواجهم مرخاتين aad keento afar markhaatiin aad keento oo iyada xad zina ay ku waajibto iyo markhaatiin aadan haynin hadalkaaga sida ka muuqato waxaad aragtay ma jira waa xanaaqay weeye xadul qadaf 80 jaldatan ah baa kugu waajibi haddii aadan licaan gelin khiyaarka labaad ku furan baa inaad licaan gasho oo afar jeer ilaahay ku dhaarato inaad og tahay oo ku aragtay iyadoo dhilaysanaysa oo waliba taafraad tiraahdo
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذا بينتي تهي لعنة إلهي كوكب عدا أسكت راهدو لعنة إلهي كوكب عدا إلهي كوي ديسته مركشانات انت هدات سميسو آخرون حساب تضمن هدون كتشاذا الكواد كنا بتقلي هدات سميسو انت أنا قول كمية غير نماذا ويقول أبدا هذا الدون كاللبدي إنك سوى هدان مهري سوكين قبان ماي وحين ذاك صهر ومرخاتمها يلي عنا قلي ماي يدنا هذيك ودقنتهي فجلدوهم 80 جلدة واي كو بقول تسديت شابوك أو تشادن الورف تواي كو لبا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولي أنا مرخاتك هذا بالله أقبل ما إلى سعادة وقتها كانت كوب شاه مرخاتك وما قالوا وركيسوا معها بحن بالودي محكمة دي قرت ياتي مع دبا دم قد قشين تلاقي وينك سفيري مركب مسألة هذا مسألة القذف وي إلهي التوبة كان يدنا عفس ويدي سبيل الله التوفيق شيخ qofka la wuxuu leeyahay walaal aad baan idin salaamaya dhammaan bahda Soomaali jana gaar ahaan Sheekh iyo Faysal magacaygu waa Ibrahim waxaan joogaa Buuhoodle waxaan doonayaa in la weydiiyo Sheekha walaal waxaan hadda ka hor ka mid noqday ardadii scholarship-ka ka heshay Suudaan marka walaal waxa la igu soo qoray kuliyadda shariicada ana waa diiday inaan barto kuliyadaas marka walaal maadiga ayaan rabay dambi miyaan galay Sheekha li weydiiyay الحمد لله مايا قفكو التخصص كو برانيو كلية الشريعة هي قسم الشريعة إن لبرتو فروض الكفايات وي حتى داد برانيو يشيران داد كورنا فرض عينكو ماها إنو برتو تخصصات كالي ون دين تكوهري منينين وسنولوشي سنة كم ماريو وحبا ناوي دين تبراشة هذونا كلية الشريعة إن لقال كلية ماها صدرت قفكني ama saa'ilku aniga iyama muuqato haddii aan wax kale isaga u qarsoona oo diin nacayb oo ku diidayay uu jirana diidaya ma diidinaaba waxa daboolaaba dambigeedu u yeelanaya laakiin anu qismu shariica gali maaya dhaqaalahan gali ama media iyo warbaahinta information kan gali ama computer iyo waxaan gali IT baan gali ama caafimaad baan gali ama engineering baan gali ama beeraan gali wax dhibaato ma laha qofku waxa ma dambaabin haddaan wax kale u daboolaa jirin wabillahi tawfiiq qof kale ayaa waxa uu leeyahay marka hore waan in salaamay bahda Soomaali channel iyo Sheekh Shibili marka xigta Sheekha waxaan weydiin lahaa waxaan ahay qof waayeel ah oo dawladdu biisho intii aysan biilka ii bilaabin waxaan ka diintay lacag xajkii baa soo galay iyadoo lacagtii la igu leeyahay waxa la igu yiri iyaga goosanaya lacagtaas lagu leeyahay maadaama iyagu ku siiyaan sidaas maadaama iyagu lacagta ku siiyaan sidaas ayaan xajka ku aaday markii aan soo deentay lacagtii waxay dawladda ii sheegtay in ay goosanayso lacagtii aan hore uga deentay marka sheekhu maxay diinta ka qabtaa alxamdulillah waxaan su'aashu xajkiisii way xajka lacag uu ka deensay dawladda ayuu xajku ku aaday markuu soo laabtay in lacagtu waa laga jartay alxamdulillah qofku haddii uu wuxuu haysta ku aado iyo deyn hadduu ku aado xajka hadduu tago arkaantii iyo shuruudii iyo aadaabtii uu ilaaliyo xajkiisu waa asaxaya faradkii islaamkuna waa ka dhacaya waajib kuma aha qofku deyn intuu qaato inuu xaj ku aado laakiin haddii uu deyn ku qaato aado ama deeq ku helo isaguna qof caqligiisu joogo qaangaar oo xora uu yahay faradkiina waa ka dhacaya xajkiisuna waa asaxaya xajkiisa wax dhibaataa soo gaarsiin mayso deyntaa uu qaatay laakiin hadday deyn riba ahayd su-aasha kuma jirto hadday deyn laakiin riba iyo xaaraan iyo ay gasho dee waxaan uu qaatay wuu ku dambaabayaa xajkiisuna waa asaxaya waa nooca fuqahada ee markay yidhahdaan buu noqon saxa wa casaa xajkuna waa asaxaya isna wixii kale gelay dembiguu kale u dambaabaya Soomaaliya xajka dad joogo dembi galaya sigaar cabaya ama dad xamanaya xajkuna waa asaxaya dembiga kale aad samaysana waa dambaabaysa sida cibaadaadka markaad ugu jira dunuubta la sameeyo qof sooman oo dad xamanaya saxa wa casaa way xaj soonkaagu waa asaxaya tanna dembi waay laba isku xidhan maaha wayna kala bixi karaan adoo Soomaaliyeedna waa dambaabi kartaa adoo Soomaaliyeedna dambaabi way dhici kartaa billahi tawfiiq sheekh waxaan soo gaarnay qiimihii dambe ee barnaamijka qof kale waxa uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa sheekh inaan weydiiyo gabar saaxiibtay ah oo Iiraan Shiica ah baa rabta inay noqoto Sunni maxaa laga rabaa inay samayso ma sida dadka aan muslimka ahayn mise si kale bay u soo galaysaa Sunniga anigu garamaayo ay tiri sheekh waxaan rabaa in la ii sheego qofkan soo ku soo islaamay sida dadka Kirishtaanka oo kale ku soo islaamaya mase waa Shiico oo waxa jirta si ka duwan qofka loo soo islaaminaya الحمد لله horta shiicada nooca uu yahay bay ku xiranta shiicadu qaar sida gaalada islaamka shahaadada loogu qaban
baa jira hadduu shiico buharaa yahay hadday shiicadeedu agakhaan tahay hadday shiicadeedu nimanka nusayriyiinta ee hadda suuriya haysta tahay hadday shiicadeedu nimankan duruusta ee lubnaan joogoo kaleeto tahay kuwa haddii ay tahay shiicadeedu waa gaal hadda la islaaminayo wey xataa muslimna maaha murtadiinna maaha kufaar asliyiin wey waayo kacab intaasoo qarni bay gaalnimo soo kala dhaxleen gaalkuna hadduu kacab gaal soo noqdo kii horea murtadihi murtadkii ma taagnaado hadday kuwaa tahay shiicadeedu muusan soo sheegin qofkuya hadday shiicadan kuwan jacfariyada itnaa cashariyada la yidhaahdee hadda ciraaq iyo iiraan iyo haysta ay tahay ama kuwan zaydiyada yaman ku badan iyo ay tahay kuwa nooca shiicadoodu hadday tahayna dee odayaasha madaxyaweynta maahane mujtamaca intiisa kale mukafiraad ay ku dhaceen way jiraan laakiin ilaa xujo lagu oogo xaqana loo caddeeyo waa gaala ma dhihi karno qaab kaloo sunnada u gelayaan baa jira kuwaan dambuuna aan dhahadee kuwaas hadda shiicadana u badan toorana xukunkeedu waa cadyahay oo sidii gaal cusub baad loo dhaqmiyo gaal cadaan oo kristan oo soo islaamaya ama bilaadiinha islaamayaad kuwii hore loo dhaqmay kuwan dambe laakiin waxyaaba lagu kala duwan yaho asaasiyaadaa jira kow masalada saxaabada waa inay ogolaataa fadliga saxaabada waa inay ogolaataa oon saxaabada lacayn wax laga sheegin laba abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali say khilaafada u kala horeeyeen bay u kala fadli badan yihiinna waa inay ogolaataa saddex qur-aankan kitaabka ilaahay inuu yahoon waxba laga bedelinna waa inay qirtaa oo ogolaataa afar a'imo 12 oon dembi ka dhicin oo adduunka maamulo a'imo macsuumiina iyo mid maqanoo la sugaya inuusan jirinna waa inay qirtaa afartaa qadiyadood baa asaasi u ah oo hadda afarta qadiyooda ugu waaweyn ee shiicada itnaa cashariyada ama jacfariyada naga duwan yihiin kama madhab ahaan iyo kutubtoodu qur-aankan kii ilaahay oo dhammaystir inuu yahay ma qirsana waa inay qirtaa saxaabadu waxay rumaysan yihiin wax yaroo 7 iyo 10 iyo dhowr iyo 10 marka ugu badan la gaarsiiye maahane inta kale nabi maxamed kadib inay wada gaaloobeen masalada waa inay saxaabadu fadligii iyo islaamnimadoodii qirtaa saddex waxay gaar ahaan saxaabada sii rumaysan yihiin cumar iyo abubakar iyo cuhmaanba inay gaalo cali dhacay yihiin oo khilaafadii iyo hoggaanka muslimiinta aan xaq u lahayn masalada waa inay ka noqotaa say u kala horeeyeen bay u kala fadli badan yihiin waa inay ogolaataa saxaabada la xiriirtaa weli midda saddexaadi aymo waxay rumaysan yihiin 12 oo macsuuma oon qalad ka dhicin oo qeybka og oo dunida maamusha oo wixii dhimanaya wax walbaba laga weydiiyey waxba taana inayna jirin waa inay qirtaa waxay rumaysan yihiin imaamkii 12aad maxamed ibn xasan alcaskari sirdaabka saamirada ciraaq ku taalla suu u galay waa la raadinayaa weli imaam ghaa'ib oo maqan oo kii 12aad oo la sugayana oo shariicada qaar ku xidhan tahay qur-aan kalena watana inuusan jirin waa inay rumaysaa intaa hadday rumayso waxaad nugu dari intaas tacaaliimta sharciga ah iyo axkaamta diinta qur-aanka iyo sunnada nabiga laga qaadan sal ly slam a'imadii sunnadana waa lagu dayan intaa hadday kaa yeesho dee sunnada si fiican bay u qaadatay hal mid laakiin qofka saa'ilka iima cadama rag baa mise waa dumar waa dumar waa gabar saaxiibteedii waa dumar waa labadoo dumar waa hadday gabar saaxiibtaa tahay intaasaa kugu filan laakiin haddii waxaan dhihi lahaa rag yahay ama tan oo kale ay rag soo marto gabadhii inay sunni noqoto ay rabto iyo guud ahaan shiicaa sunno noqonaysaba masale taqiyada iyo beenta ha laga ilaaliyo waxaa mushkiladda ugu badan ee madaahibta kaloo dhan gaal iyo muslimba ay kaga duwan yihiin waa nin shiicaa inuu run sheegaya seed ku aamintaa wey qofku diintu doona ha haysto laakiin runta in la sheego waa inuu rumaysan yahay sooma shiicadu run in la sheego inay beentu ka ajir badan tahay rumaysan yihiin waxay yidhahdeen ataqiyatu 19 diini diinteeda 9 marka loo dhigo 10 marka loo dhigo 9 waa dadka been in loo sheego inuu been kuu sheego oo been kuugu dhaarto oo diin beena kuu sheegto ilaahay ugu dhowaanaya ajir kaga helaya saa darteed sunni baan ahay buu ku dhihi mana aha qur-aankaan rumaysnahay buu ku dhihi mana rumaysna aima ma rumaysni buu ka dhihi wuuna rumaysan yahay beentaa uu kuu sheegay inuu ajir ka hori buu rumaysan yahay intuu u yimaado kristanka wuxuu ku dhihi kristan baan ku ahay kristan baan ahaydaa uu ku dhahaya ilaahay ajir agtiisa inuu kaga helayo rumaysan yahay qofkaas eed yeeli qofku beentii ajir ku doonaya walidaalika waxaad u baahan tahay muddo kadib ka hor muddona qofka inaad ka fiirsato war qofkani maka daacad baa mise kama aha
oo mushkiladda ugu badan ninkii shiicoobay hadda waan ka soo noqday yidhaahda ama shiica waan ka baxay ku yidhaahda inaad rumaysato xataa hadduu kuu dhaarta ma sahlana wabillahi towfiiq qof ayaa waxa uu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waan ku salaamayaa adiga iyo bahda Soomaali Channel sheekh gabadh Soomaaliyeed baan ahay oo dhawaan Sweden timid waqooyiga baan ku noolahay Sweden dhaxan aad u badan baa ka jirta marka su'aasheedu waxa waaye sheekhow tayamuuman ku samayn karaa salaad kasta cabsi biyaha aan ka qabo awgeed alxamdulilah haddaadan biyo diiran heli karin sunanku waxay wariyeen saxaabiga camr ibn caas radi allahu canhu wa ardaah inuu ciidan uu diray nabigii oo jihaad aaday oo daatu salaasil la yidhaahdo inuu hogaaminayey xilli qaboobay ahayd janaabaa ku dhacday biyihii qabowgoodu ka cabsaday intuu iska gebagabaystay buu tukiyey dadkii markii nabiga loo yimid madiina lagu soo noqday sal ly slam baa loo sheegay nabigaa u yeedha masaasaad samaysay buu ku yidhi markaasuu yidhi haa wuxuu yidhi maxaa u samaysay biyihii baan ka cabsaday buu yidhi lafahayga waxaan xasuustay ilaahay inuu yidhi qur-aanka walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina haddii ilahi wuu idin naxariistaa biyihina waan ka cabsaday markaasaan sidaan sameeyey buuri nabigu waa ku qoslo waa ka aamusay sal ly slam maanaa sida uu aayaddii u dariishaday inay sax tahay baa ka muuqatay salaaddii soo celin lama dhihin waad qaldanteen laba nin iqraar wey waa la ogolaaday saa darteed qabow haddaad ka cabsato intaad qabowga ka cabsanayseed biyo kulul ka helayso waad gabagabaysan kartaa billahi towfiiq sheekh su'aashan waa su'aashii ugu dambeeyay qof ayaa waxa uu leeyahay imise firqa ayay islaamka u kala baxaa teebaad sax ah oo tan ugu dhow dariiqa saxda ah ama sunnaha waafaqsan alxamdulilah nabigeenu sal allahu alayh wasalam wuxuu sheegay inay ummaddani 73 firqa u kala bixi doonto magacyadooda inooma sheegin haybtooda kalena inooma sheegin 73kii ma dhammaystirmeen bisuuli qaybo soo bixi doonaan dhimanna garan mayno laakiin kolaba qaybo badan baa soo baxay 73 firqay gaari doonaan muslimiintu dhammaanna khaldan yihiin hal mid ma ahane taa nabigu markuu tilmaamayay sal allahu alayh ali wasalam hiya aljamaaca tuu ku tilmaamay jamaacadanna waxaa looga jeedaa midda dariiqiisii haysata waxaana sii fasiray riwaayaad daciifa ah sii fasiray oo leh ma ana calayhi wa asxaabi xadiidka cabdullahi bn camr alcaas baa wuxuu leeyahay waa ta ku sugan ma ana calayhi wa asxaabi aniga saxaabadeedu dariiqaan hayno lakiin xadiidku ma asixino nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibni ziyaad ibni ancam alafriiqi baa ku jira xaakim iyana isagay ku daciifiyeen rag lamida duruqda kale lagu xoogeeyeyna duruq xoogeyn karta maaha halka ariiq kale camr ibni cawf iyo xadiidkiisa laga warinayo waa sanad taalifoon mutaabacad iyo shawaahid gelin wey ka xadiid ahaan uma asixin laakiin macno ahaan saxiix wey nabi maxamed alay slam dariiqiisii iyo saxaabadiisii iyo sunnadiisii qofba intuu uga dhow yahay buu jamaacadaas uga dhow yahay waxaa dhici karta inayn qolo isugu wada imanin oo qoloba qayb ilaahay ka waafajiyaa dhici karta aakhiru zamaanka marka la gaarana qolo nadiifaba way yaraan doonaan oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu xudayfo waraysanayey wuxuu yidhi shar baa nabi maxamed oo ku jirnay sharkii khayr baa ilaahay noo keenay gadaashiyo islaamnimadana fahal bacda haada alkhayri min sharin markaasuu yidhi nacam haa shar baa ka dambeeya bale iyo imtixaan baa ka dambeyn doona islaamnimadan wuxuu weydiiyey su-aal kaleo wuxuu yidhi sharkaa kadib khayr ma jiri doonaa markaasuu yidhi nacam haa wa fiihi dakhan laakiin qiiq baa ku jiri doono suu saafida u ahaa islaamnimada iyo iimaanka iyo ku dhaqankiisu suu waktiga wejigan hore nadiifta iyo saafiga u ahaan maaye qiiq baa ku dhex jiri doona tacrifu wa tunkir waay waxna waad agbogi waxnaad la yaabto waxoogay luuqana waad ku dhex arki saas darteed un dadka diinta iyo ku dhaqankeeda ugu toosan ee had iyo goor kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga raacitaankeeda ugu dhow raac waxaad soogaata aakhiru zamaan baan ku jirnaaye wax wada nadiif oo boqola inaad hesho way adkaan doontaa wa fiihi dakhan qiiqa u yar jireen meel uu waxsi ka yahay oo tii guurka markii la hadlaysu gaadhay gabadhaa tiraa meelun baa go-an lalahaa qoladaa tiraa qoladana u fiicanba meelun bay ka dhutiyayaana ba-aad u badan ilaahay xaq ah inagu sugo kuwii sunnadiisa iyo dariiqa faacan raacan allah inaga dhigo firaqaa yaraa ku lumitaankoodana allah inaga badbaadiye nacam
daawada inta waxaan kusoo gabagabeynaa qaybtii tobanaad ee barnaamijka kulanka Shibli ee Somali Channel oo ah barnaamij toddobaadle ah oo toddobaad walba kaga yimaada studio labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi. Toddobaad waliba su'aalaha soo weydiisanaya waxa inooga jawaaba sheekheena weyn Sheekh Maxamuud Shibli. Qof walaal qofkii doonayna sheekha su'aalo soo weydiiyo wuxuu noogu soo hagaajin karaa ciwaanadeena kala kulanka Shibli Somali Channel TV iyo page-ka Facebook aan ku leenahay kulanka Shibli iyo Somali Channel. Dhanka farsamada toddobaad walba waa Cabdiraxiin Darbo tabintina waa anigu Faysal Casiir Maxamed barnaamijka ay ku kulmi doono toddobaadka xiga duu alla nabad nagu gaarsi waxaan kaga tagina dhamaantii nabad geliyo sheekh Adam Masanta. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. daawada meel kastoo dunida ka joogta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka taxanaha ee kulanka Shibli ee Somali Channel oo toddobaad walba kaga yimaada jiray studio TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi. waa xalqadii tobanaad ee barnaamijka sheekh qofka ugu horeeya ayaa waxa uu leeyahay waxaan salaamayaa sheekha iyo bahda Somali Channel waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo hadii waalidkii ugu qasbaan inaan gabar u dacwoodo oo waa xaaskayga oo been aan ugu dacwoodo inaan ka diido maxay diinta ka qabtaa waalidkii. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. والدكو wuxuu mudan yahay in la ateeco la ixtiraamo la qadariyo laakiin taacada iyo dhaganuglaanta iyo baarinimada waalidka baari loo yahay kuma jirta wixii dembi iyo macsiyo ah. arrintan labadaba dembi iyo macsiyo ay u tahay. marka koowaad ee beentan la sheegayo gabadhaadan qabin waan qabaa inaad tiraahdo beentaan aad ku dacwooto diiwaan iyo xuquuqna ay ka dhalato waa dembi iyo macsiyo wey. midda labaadi qof aadan hadhow mas-uuliyaddiisa qaadi karin qurbe iyo gaalo inaad geysana iyadana wixii dhibee ka yimaada dembiga qayb baad ku yeelan. waxaaduu dembi iyo macsiyo noqdo cidna laguma ateeco. nabigeenana sala allahu calayh waalihi wasalam waxaa ka sugan marar badan inuu arrimahaasoo kale ka digay in la ysku ateeco. mar waxaa ka mid ah axaadiistiisa inama ataacatu fi lmacruuf. taacada iyo kala amar qaadashadu waa wixii san ee wanaagsan. marna waxaa ka sugan inuu yidhi fa innahu laa taacata limakhluuqin fii macsiyati illaah. qof aadamaha dembi ilaahay laga geliye macsiyo iyo xaaraan laguma ateeco. saa darteed waalidku ixtiraam iyo qadarin iyo taacu leeyahay tanoo kale laakiin maaha. saa darteed ma ii bannaan tahay maaha su-aashuye waa kaa xaaraan waalidka hadalkiisa inaad yeesho waana kugu waajib inaad diiddo isaguna inuu taasoo kale kaa codsado codsiga laftiisuu ku dambaabaya oo waxa waajibka waalidka laftoodu inay taasoo kale dembiga ka toobad keenaan ay macsiyada iyo xumaanta iyo beenta amrayaan. wabillahi towfiiq. qof kale waxa uu leeyahay sheekh assalaamu alaykum sheekh Shibli waan ku salaamayaa adiga iyo Faysal Casiir iyo bahda Somali Channel. magacaygu waa hooyo Soomaaliyeed waxaan joogaa Nairobi. walaal waxaan rabaa inaan sheekha ii weydiiso odagaygu wuxuu jiraa Ameerika 19 sano mana soo socdo namana kaxaynayo anigii ciyaalka markasta ballan ayuu naga qaadaa wuxuuna yiraahdaa waan i qaadayaa aniga maqnaashihiisa kama xumi laakiinse waxa ay dhibtay ballantaani badan oo intuu dhowr mar uu qaado haddana iiga baxayo marka diinta maxay ka qabtaa ballantaas uu dhowrka jeer iiga baxayo. alxamdulilah haddii aan mushkilad biil ahayn mushkilad tabitaan reernimo iyo maqnaanshihiisana sida ay saaqiqa hooyadani sheegtay ayna waxba dhib u arkin masaladan ballanta uu qaaday oo sidaan u fahmay ay tahay iyada iyo ilmaha inuu caro Maraykan geeyo inuu qaadana ma bannaanayn in la fuliyana ma bannaana. saa darteed shariicadu isaguna waa khaldan yahay iyaduna way khaldantahay. isagu waa qaldan yahay oo ballantaa beenta uu qaadayo dee ballan beena iyo wax dembiya ballantii lama qaado. in ballan dembiya la qaadana macsiyo iyo sharciga mukhaalafadiisa wey. haddii la sameeyo ballanta iyo nadarka wax dembi ana nabigana waxaa ka sugan sal alla alay slam laa nadra fii macsiyatin. nadru macsiya mabaa guntamaba kafaaratu yamiin baa laga rabi lahaa hadduu xataa nadar galo laakiin fulintu ma bannaanaateen. hadaad ku dhaarato amaad ku nadarto amaad ballan qaadda wax dembiya waxaa ku faran tawba iyo dhaarta iyo nadarka oo kafaaro leh laakiin fulinta wixii aad ku dhaaratay waxaad ballan ku qaaday waxaad ku nadartay ma bannaana.
ilmo yaryara in arladaa gaalada la geeyoon hadhow awood iyo maamul lalahayn inihii la geeyeyna inta badan ay lumeen hooyadana uma bannaana inay ballantaa tiigsato ay dalbato ay tiraado waa in la ii fuliyaayo ay dhib u kiciso isna xataa hadduu ballan qaaday oo uu daacad ka ahaa inuu fuliyo ma bannaana ceelna nin galaa faysalow la waraystaaye ilmaha carada qurbaha iyo galbeedka iyo westreenka loo sii qaadayo anu north america ma tegin laakiin yurub iyo bariga foga australia new zealand baan ka tegey ilmaha soomaaliyeed ee meeshaa lagu hayo iyo ilmaha muslimka ee wadamadaa la geeyena waan arkay ilmo yar geyntoodu ma bannaana waa tahluko diimeed iyo meel qarkaxoora waay ilmo caruuro badan oo soomaaliyeed oo diintii ka baxay baan arkay anugu oo wadamada dabeecadda da-dooda ka jirta waxba ma rumaysni ilaahna ma rumaysni nabina ma rumaysni diinna ma rumaysniya waalidkuna waxba kama qaban karo iyagoo sidaasay qasab guriga ku joogayaan ama ay gaalo la wareegaysaa meeshaas ilmaha in la geeyaay waalidka ilmihiisa iyo diinta mustaqbalkiisa ku bakhaylayaay inuu ballan qaadana maha inuu riixana maha saa darteed hooyadu waxay ku khaldan tahay meeshaa ilmaha tahalukada diineed lagu tuurayo ballantii waa in naloo fuliyaa inay ku doodaay sharci ahaan ma bannaana wixii kalaa laga hadli karaayaa bil nama siiyo maqnaanshihiisaan tabaynaayo anuu dee reer iyo dhaqan baan u baahnoo reerka yaga waxaan cuniyo meelan sixda kama waayin gabadhu xaq bay u yeelan lahayd laakiin intaaba haddayna dhib ka qabin tan ballanqaadkuna waa dembi raadinta fulinteeda iyo tiigsigeeduna dembi weeye marka labadoodaba ha toobad keena billahi towfiiq qof kale wuxuu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waxaan joogaa waddankan Kenya waxaa dharka noo dhaqda haween Kenyan ah marka dharkaasi oo gaala ah marka dharkaasi ma ku tukan karnaa mise kuma tukan karna sheekho alxamdulilah haddaydan wax nijaasaa gacmaheeda ka ogeyn waad ku tukan kartaan dadka gaalada ee aadamihiihina in najaaso lagu arka maahane sidooda kale waa u daahir gaaladu waa laba kuwa ahlu kitaabka ee guurkoodu bannaan yahay iyo kuwa aanu bannaanayn kuwa guurkoodu bannaan yahay dee sharcigaaba banneeyey ninkii isagoo muslima gabadh ahlu kitaaba inuu guursado iyadaa gurigii joogta iyadaa gohoshiya iyadaa cuntadii karinaysa iyadaa dharkii dhaqaysa iyadaa gurigii nadiifinaysa jirkeedii waa nijaasay iska ilaali maaha nabigana alai slam reer yahuudeedoo madiine la deganaa intay cuntaday kariyeen guryahooda ku marti qaadaan buu cuni jiray nabigu sala allahu alayh ali wasalam mararka qaarkoodna waa kii loo subeeyey saxaabada qaarna ku dhinteen isna suntii aakhirka asbaabta geeridiisa ay ka mid noqotay huwa biabi wa ummi sala allahu alayh ali wasalam hadday yihiin dadka aan diinba haysaninoo wathaniyiinta iyo majuusta iyo mushrikiinta iyo mararka qaarkood la yidhaahdana iyagana dhibaato ma lahano xadiidkii saxiixa ku yiilay cimraan ibnu xuseen radi allahu canhu wa ardaahu waa kii uu lahaa xilli ay oomana ahayd isagiiyo nabigiyana safar ahaayeen intay baxeen oomana iyo balaayo ay dhacday aad loo rafaaday bay soo qabteen islaan mushrikadoo ceel intay ka soo dhaansatay reerkeedii u socota way weydiiyeen biyuhu intay jiraanoo ma dhoway ku tiri iyadii bay soo afduubeen waxaana filayaa cali baa la socday radi allahu canhu wa ardaahu inkastoonan hubin way keeneen nabigay u keeneen waa la fariisiiyey nabigu wuu duceeyey dadkii wuxuu yidhi ka weysaysta waa weelkeedii iyo qarbadkeedii iyadoo ay soo dhaansatay biyahana ku soo shubatay afkana ka soo xidhatay waa la cabbay waa lagu tahaaro qaatay weelal baa lagaga shubtay biyaheediina waxba isma dhimin raashin baa loo ururiyey raashinkii baa la siiyey waad mahadsantahay iska socaa la yidhi dadkeedii markay u tagtay waa kay dhihi jirtay maanta waxaan arkay bay tiri nin laba mid ah ninka nabinimada sheeganayay ama waa nabi ilaahay ama waa uunka ilaahay abuuray kii ugu saaxirsanaa wayay tiri intaasoo biyoo la isticmaaloon arkaya weelkaygana isma dhibin waagii dambana reerkoodii iyadoo fariintay soo tabisay darteed iyo biyaheedii la cabbay abaal loo hayay baa looga warwareegi jiray reerkoodana sababtii bay ku islaameen waxay tiri wareer waxa idinka warwareegaya tiin baan u malayne niyo islaamka qaata haddaba waatay culummadu ku soo koobaan lafdiga kuma soo aroorin laakiin tawada'a min masaadati imra'atin mushrika naag mushrikadoo diinba ilaahay ba rumaysnayn oon diinba kitaab lahayn biyaheedii buu ka weysaystay saa darteed gacmahoodu waa daahir jirkooduna waa daahir wixii ay kariyaan iyo wixii ay dhaqaanna nijaasa ma aha wixii qalitaana waa baab gaarkiisa ee la kala qaadayo saas darteed waa ku tukan kartaan waa ku seexan kartaan weelasha waxaad ku cuni kartaan wax way idiin karin karaan billahi towfiiq
qof kale ayaa sheekh wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacayga waa Kamaal waan idin salaamay adiga sheekha su'aasha aan rabo sheekh inaan weydiiyo waxa ay tahay marar badan ayaa waxaan ku dhaartay Kirishtan ayaan ahay haddaan waxa sameeyo marka sheekho wixii waan sameeyay marka dhaarta diintu maxay ka qabtaa dhaartaas dhowr mar aan ku dhaartay waxaan sameeyay Kirishtan ayaa haddana wixii ma sameeyaa alxamdulillaah nabigana waxaa ka sugan sallallahu alayhi wa sallam fi saxiixi inuu yidhi man xalafa bimillatin gayri alislaami kaadiban fahuwa kamaa qaal ninka xataa isagoo ay been ka tahay ku dhaartay diin aan muslimka ahayn sida uu yidhi buu yahay kristan maanay hadduu yahay kristan waa sida uu yidhi buu yahay ibn Mas'ud fahuwa kamaa qaal waa sida uu yidhi riwaayadka qaarkoodna taluu ku bixiyayo markaa kadib waxaa la samaynayo wuxuu yidhi falyaqul laa ilaaha ila allah shahaadada ha qabsado dee ninkan intii un baan leenahay haddaad diin kale ku dhaaratay nabigu wuxuu yidhi qofkii diin kale ku dhaarta waa sida uu yidhi sida uu sheegtay buu yahay maxaa xiga oon sameeyaa nabigaa sheegoo yidhi falyaqul laa ilaaha ila allah shahaadada ha qabsado billahi towfiiq daawada waxaan dhexda ugu jirnaa barnaamijka kulanka Shibili ee Somali Channel waa barnaamij toddobaad walba in kaga imaada stuudiyaha labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi barnaamijkan qof alaale qofkii doonaya inuu ka qayb qaato wuxuu nagu soo hagaajin karaa su'aalihiisa ciwaanadeena kala kulanka Shibili Somali Channel.tv ama page-kan ku leenahay Facebook oo kulanka Shibili Somali Channel qof kale sheekh wuxuu leeyahay walaal waxaad sheekha ii weydiisaa markaan rabo janaabada inaan ka meerto qaabkee ugu haboon oo loo weysa qaadanaya markaan janaabada ka meedhan rabo qaabkee ugu haboono markaan janaabada ka meerto ka qubaysto qaabkee ugu haboon waa aan weysa qaadanaya alxamdulillaah weysada iyo janaabadu waa laba xadath oo la kala yiraahdo xadath asghar iyo akbar midka yar iyo midka weyn bimacnaa weysadana xubnaha qayb ka mid ah la dhaqaa qabayskana xubnaha jirka oo dhan baa la dhaqaabadii waa mid jirka oo dhan aad dhaqayso iyo mid aad jirkii qayb ka mid ah dhaqayso laba qaab labadaba saddexdaba waad u weyse qaadan kartaa in intaadan weyse qabaysanin aad weyse qaadato ama jirka oo dhan weyse qaado ama lugaha hambee labada ariiqaba nabiga way ka sugan tahay sala allahu alayh alih wasalam kadibna aad qabaysato sida aad ku weyse qabto qabayska aad weyse qabaysee la eegayana waa un qaybaha ugu dambeeya qaabka labaadii waa inaadan weysaysanba laakiin janaabadii inaad ka qabaysato janaabo iyo qabays waajib inaad qabaysanaysa aad niyooto weysaduna way raacaysaa oo waxa tadaakhululcibaadaad la yidhaahdo weeyo way soosgelayaan mar haddaad kii weynaa samaysay xubnahaad dhaqi lahayd iyo ka badanba dhaqday inaad ku noqoto waxba looma baahna nabigana lagama warin sala allahu alayh wasalam intuu janaabo ka qabaysto haddana dib inuu ka weysaystay ma jirto haddii uu shaki kugu yimaado amaad weysadii wax jebiyey samaysa ee kugu yimaado ama inaad istaabatay iyo ay wax dhacdo markaa qabayska dhammaysata dib inaad ka weysaysato labada horaana ka fiican inaad iska weysaysato kadibna qabaysato waa ariiqada ugu fiican haddii aad qabays waajibood niyootay iska qabaysatana ama janaabo ha noqoto ama xayd ha noqoto ama dhiig umul laga qabaystay ha noqotee iyadana ta kalena weysaduna way raacaysaa oo xubnihiiyo ka badanba waa dhaqday kolba intaan ogahe garanaya anugu ama arkay hadyiga nabigeena sala allahu alayh ali wasalam isagoo intuu qabaystay qabays waajiba haddana dib weyse cusub ka weysaystay ma arag wabillahi towfiiq sheekh qof kale ayaa waxa uu leeyahay waxaan rabaa in sheekha la ii weydiiyo su'aal oo ah markaan la baashaalaya xaaskayga waxaa iga yimaado biyo aan mina ahayn haddii ay shahwadu kacdo bacdideed oo aan u tago xaaskayga biyihii hore najaas miyaa oo meesha ay iga gaarto ma iska dhaqayaa alxamdulilaah biyaha yimaada carabiga madyi baa lagu yihahdaa miim daal iyo yaa madyi soomaalidana waxaa ka mida magacyadeeda lixdaleelo ama yixdaleelo labada waa lagu dhawaaqaa labada dhawaaqoo soomaalida mujtamacana waan ka maqlay biyaha sidaasee shahwada ka hor yimaada waa biyo jiidma oo yar dhareer ahaana waana biyo aan aada u caddayn oo dhuuxaya lafta iyo yarmadow kaga jira aada moodeyso biyahaasi madyiga la yihahda najaaso wey nabigeena calayh salaatu wasalaam baa la weydiiyey cali bn abi aalib bay aada ugu badnayd radi allahu canhu wa ardaa gabadha nabigana waa qabo waa ka xishooday marka rag buu u diray ay ka mid ahaayeen miqdaad bin aswad iyo rag kale nabiga markay soo weydiiyeen wuxuu yidhi waxay meeshay kaa gaadha iska dhaq kana weysayso manac sida kaadida oo kaleeta waya xukumkeedu najaasada iyo weyse jebinta labadaba
biyaha sidaasi hadday ku gaadhaan dee waad iska dhaqi. waxaa kaloo nabigeena la weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam saxaabada nin ka mid oo ka sugan, rasuulka ilaahayow ma ku tukan karaa maradii xaaskayga aan ugu tegeen ugu galmooday ma ku tukan karaa? nabigu wuxuu uhi nacam in lam tara shay-an ilaa an taraa shay-an fatagsilah. inaad wax ku aragto qoyaan oo gaadhood markaa ka dhaqaysa maahane. haddaba haddaan waxba gaadhin laga dhaqi maayo waad ku tukan kartaa. haddii wax kaa gaadhase waad iska dhaqi. xadiidka cuثmaan radi allahu canhu ardaahu isagana maxaa leeyahay zayd ibn khaalid aljuhani marka nabiga la weydiiyey alayhi salaam qofka waxa ka soo gaadhay xiriirka gogosha iyo reerkiisa markay dhex maraan wuxuu yidhi wixii ku soo gaadhay ee qoyaana waad iska dhaqi. saas darteed waad iska dhaqi wixii qoyaan ee jirkaaga ama maryahaaga gaadho. bilahi towfiiq. qof kale ayaa waxa uu leeyahay asalaamu calaykum, magacayga waa Sakriya Cali Faarax, waxaan joogaa Muqdisho. hadda ka hor ayaan xanuunsaday, waxaan xaaskayga ku idhi aan ku furo oo waan xanuunsanahay. markaas waxay tiri ma hay furin waa kuu samreeya. marka sheekhow ma aan furin, gabadhii waan isqabnay, ilaahina caafimaad ay siiyay, waan caafimaaday. marka aan ku furo gabar xaaskayga ma iga furantaa weliba anigoo xanuunsan waan caadi ahayn? alxamdulilah. marka koobaad dee ilaahay ku caafiyey mahadnaq iyo shukri buu kaa mudan yahay. intay naga jirana allah caafiyo. marka labaad dee xaaskaagu libin iyo abaal bay kugu leedahay adoo xanuunsan hadday kuu sabirtay adna wax badan aad ugu sabirtaa lagaaga baahan yahay. labadaa marka laga soo tago sidan furiin maaha. waxaa kala duwan oo rabaa inay fahmaan dadka dhegaystayaashii daawadayaashii furiin iyo ballanqaad furiin, طلاق iyo wacdu biطalaaqi. masaladan waa soo jeedin furiine furiin maaha. soo jeedintaa kadib bay fulin iyo inaan la fulinin lahayd. saas darteed gabadhu sidan kuma furanto. aan ku furo iyo waan ku furi doonaan, waa ballan inaan ku furo inaan ku furaan ku heshiinay, waxaasoo dhan furitaan maaha. haye heshiiska marka la gaarada in la fuliyo buu furitaan ku noqdaa. tan waa wacdi ama waa طalab iyo soo jeedin, labadaa midna furitaan maaha. ilaa uu yidhahda waan ku furay oo arrintii uu ku tallaabsado markaasaa furiin iman lahaa. laakiin intan furitaan maaha, waxbana kagama furna sidan. wabilahi towfiiq. qof kale ayaa waxa uu leeyahay waxaan sheekha weydiinayaa inay bannaan tahay in xaaskayga aan afka iska nuugno, masaladaasi oo muran badan ka taagan tahay. waad mahadsantihiin. alxamdulilah. faysal afka carabka miya carabka iyo bishimihii miya kolba beeshiyo ka wadaa umalayna sheekh ma qiixin. alxamdulilah. masalada asal ahaan way bannaan tahay. nusuustana waxbaa kaga soo arooray. nabigeena sala allahu alayh alih wasalam markii jaabir ibnu cabdilaahi oo gabadh garoob ahayd guursaday u yimid isna nin yaroo dhallinyaro ahaa. dagaalkii uxud baa waxaa ku dhintay jaabir abihi cabdillahi bni camr ibni xaraam radia allahu canhuma, saxaabada qaal ee ka mid ahaa. jaabiroo hal wiila iyo gabdho kooxuu ka tegey. reerkii baa ku soo fakaday, wiil yarna uu ahaa jaabir. maalinkii dambuu gabadh weyn oo garoob ahayd oo gabdhahan da ahaan ka weyn buu guursaday. say booskii hooyana mayna lahayn gabdhuhu, say booskii hooye uu gasho oo qof ururiyo oo iyaga ka weyn oo wadi kara u noqoto. nabigu u yimid oo wuu u sheegay. nabigu wuxuu yidhi athayiban bikran am thayiban, ma gabar baa mise waa garoob? markaasuu yihi garoob. nabigu wuxuu yidhi maxaad gabadh u guursan weyday? wuxuu yidhi gabdhihii baa yaryaraayo mid iyaga lamida haddaan u keeno inay kala socon waayaan baan ka yaabay. marka mid qof ka yar weynoo waaya araga oo iyaga wadi kartaan doonay. taa waa qisada guud ahaan. nabigu haddaba jaabir markuu weydiinayay waxaa ka mid ah hadalladu yidhi fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka. ereyga aada la qosasho kula qosasho marka laga soo gotaa tulaacibuhaa wa tulaacibuka, dabdiga sida loo xarakaynayay bay ruwaaddu isku qabteen. xataa fii saxiixi albukhaari xaafid ibnu xajar haddayna daakirada xasuustaydu ayna si kala noqonin wuxuu sheegi jiray laba meelood oo kala duwan ruwaadda imaamu lbukhaari qaar ka mida nin mustamli la yidhaahdo iyo nin kushmayhani la yidhahdo labadooda riwaayo in nabigu riwaayaadka ay wariyeen waxaa ka mid ahaa maxaa kuu diiday gabarh yar wa licaabihaa mise wa lucaabihaa. licaabihaa ciyaarteeda waa riwaayad, wa lucaabihaa dhareerkeeda iyo caliyadeedood muudsatana waa riwaayo. riwaayada kushmayhani mustamli inay ahayd baan u malaynayaa. mar kale wuxuu dhihi jiraan u malaynayaa adunnu inuu talkhiis alxabiirka ahaa
وثبت في رواية للبخاري وحكسوا روايات البخاري قيب كمدة ereyga waa lucaabiha marka inaad dareerkeedii caliyadeeda muudsato riwaaya imaam الطبراني uu warinayo oo sanadkeeda maqaal ku jira ضعfi min xadiiثi كعب بن عجرة oo qisada jaabira baa xaabadayadana waxay ahayd fahalla jaariyatan tulaacibuhaa watulaacibuka watacuduhaa watacuduka aad qaniinayso iyadana ku qaniinta waxaa kale imaamu axmed uu wariyey fii musnadihi min xadiidi caaisha culamada qaarna ay taxsiiniyeen qaarna tadciifiyeen inay tiri nabigu kaana yuqabilu caaishata wahuwa saa'imun wayamusu lisaanaha carabkeedana waa muudsan jiray jumlada wayamusu lisaanaha waxaa loo badan yahay inaan asixin laakiin fuqaha badan ba waxaan rabaa inaan ihahda u daliishaday iyo riwaayada bukhaari waa lucaabiha caliyadeeda ah bay u daliishadeen masaladan lafteeda culimada anigu wax diiday ma arag laakiin kutubta fuqahadeena mucaashara zawjiya waxa barnaamijka ka hadlayaan in afka la iska dhunkado iyo in bishimaha la iska muudsado iyo in carabka la iska muudsado iyo dhammaan inay bannaan tahay iyo asalka ibaaxada iyo istimtaaci bannaana bay ka mid tahay billahi towfiiq qof kale wuxuu leeyahay sheekh assalaamu calaykum waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo qof ayaad hawada iska mehersateen oo ayna is arkin oo aad iska aragteen teknolojiyadda Skype-ga Fontage-ka iyo wixii la mid ah waxayna kala qarsoonna ma jiraan sidaas daraaddeed haddii aad furto ma waxa ay leedahay meher buuxa mase waxa ay leedahay kala bar meherkeeda loo magacaabay alxamdulilah meherka nuskii bay leedahay masaladani meherka nuskii lagu yeesho waa xiriir gogoleed iyo galmo inay dhacdo in la isdaadaawada maaha hadda waxaad ka hadlaysa waa inaad isdaadaawateeno kaamerooyin aad iska daawateen ama Skype ka dhig ama Fontage ka dhig ama Stream Live ka dhig ama baltogyada iyo qoralkan camera video cameraska ka dhig waxa dooni ka dhig ama teleefoonadan la iska arka ka dhig labadan qof camera iska arkeen labada qof haddii ay xiriir gogoleed iyo galmo timaadana meherkii oo dhammaystiran bay gabadhu yeelan haddii aynan lahaynna oo galmo iyo xiriir gogoleed dhicinna gabadhu meherka nuskay bay leedahay naska qur-aanku sidaa way waxa kala saarayaay haddii haweenkii furtaan ilaahay waa ka yidhi idinkoonta min qabli an tamasuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum nus bay leedahay haddaad xiriir gogoleed la yeelataan ay galmo iyo gogol timaadana fuul bay yeelan adigu ama daadaawo ama hadaadaawanin daawasho waxba kuma xirna billahi towfiiq daawadayaal waxaan dhexda uga jirnaa barnaamijka kulanka Shibili ee Somali Channel oo ah barnaamij toddobaadle ah oo toddobaad walba in kaga imaada stuudiyaha labaad ee TV-ga Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi qof alaaliyo qofkii raba in sheekha su'aal uu soo weydiiyo oo uga jawaabo wuxuu nagu soo hagaajin karaa ciwaanadeena oo kala ah kulanka Shibili at somalichannel.tv ama page-ka aan ku leenahay Facebook oo ah kulanka Shibili Somali Channel sheekh qof kale wuxuu leeyahay marka hore waxaan salaamayaa sheekha maxamuud Shibili marka xigtana daadiyaha barnaamijka Faysal walaal waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo ninka haddii uu naagtiisa isagoo xanaaqsan caayo uuna ku yiraahdo dhila yahay xukunkeedu muxuu yahay alxamdulilah horta labada isqabaay gaar ahaan inay iscaayaan ma bannaana isagu inuu dhilo yidhaahdo isagu dhila inay tiraahdo in khaniis laysku yidhaahdo in wacal laysku yidhaahdo in tuug laysku yidhaahdo in la iscaayo erayguu dooniba ha noqdee ma bannaana muslimka guud ee intay meel isugu yimaadaan nin walba dantiisa raacanayaaba la diiday inay iscaayaanoo oo nabigu yihi alayhi salatu wasallam laysa almu'minu billacaani wala alطacaani wala alfaaxishi albadii labada guri ku wada nool inay iscaayaan weliba cay foolxun iscaayaan ma bannaana arrintaasi qoyska Soomaaliyeed ha ka waansamaan ha ka waantoomaan caytanka iyo aflagaadada iyo sidaa reer laguma dhaqo xanaaquna inuu xuduud yeesho ku fiican yahay taasi waa masalada koobaad masalada labaad ninkani hadalka aad tiri waa qadaf dalaaq maaha laakiin waa qadaf waa gabadhii waxaad ku sheegtay inay zinaysatay zaaniyadta qofka hadduu qof ku yidhahda zaaniyadna hadday xaas tahay laba khiyaar baa furan iyaday horta ka go'daa inay ku dacweysato sharciga kugu dacweysa iyo in kale hadday sharciga kugu dacweyso laba khiyaar baa kuu furan
suuratu nuur awaa'ilkeeda kuwii lagu sheegay baad noqon waaladiina yarmuuna aswaajahum markhaati inaad keento 4 markhaati inaad keento oo iyada xaddu zinaya ay ku waajibto iyo markhaati inaadan haynin hadalkaaga sida ka muuqato waxaad aragtay ma jira waa xanaaqay weeye xaddulqadaf